waxaan isdhihi karaa actually shirkan inuu yahay shir ka duwan shirarkii hore ama wada tashiyadii hore oo la qaban jiray sababtoo ah waxa laga hadlayay waxay ahayd ballaarinta idaacadahana waxa ognahay mise warbaahinta guud ahaanba oo halkay ka taagan tahay maanta sababtoo ah maanta waxa jirto xaalad dalkeeni inaan dib u xoreyn ku sameeyno dib u xoreynta dalkeena kaliya ma ahan inaan deegaan kaliya xoreynayno waxa kale u baahanahay inaan xoreyno dadkii waay dadka fikradaha in laga xoreeyo fikradahaas oo ognahay inay tahay waxa maanta lagu baabiinayo qofka dilayo qofka waxna yeelanayo dhammaan waxa soo dhan waa dad isticmaalayo fikrad lagu soo shubay fikradaasna habka looga baabiin karo mise loo adeegsan karo kaliya waxa waaye warbaahinta waxay ka kulushahay sida ognahay qoriga la qaadanayo waana waxa maanta ognahay inay xasaasi u tahay inay ka mid tahay inaan anagana kaalinteena aan ka qaadano dib u xoreynta dalka iyo dadka labadaba mar labaad waxay ii tahay farxad weyn inaan maanta hoos gareyno shirkaasayto waxaan ognahay inay ka soo baxeen waxyaalo miro dhal ah waxaan rajaynaynaa inay dhammaan gaari doonto ballaarinta idaacadahaasayto halka ka maqan inaan ka taagi doono halka kalena aan u ololeyn doono inay gaarto fikradahaasayto inaan ka qayb qaadan doono inaan dalkeena anaga naftarkeena afkeena iyo adinkeena aan uga qayb qaadano dib u xoreyntiisa waxa kale oo rajaynaynaa shirarka kale oo soo socdaan ayagana in la aadi doono gobolada kale si ay u noqoto wixii wax la wada leeyahay federaalka inaan dareeno dalkiinu ka jiro federalismka hadda aan dareemayno waxaana taasna dareensiin kartaa markii maalin kasta oo magaalada wasaaradda inoo horkacayso taas macnaheeda ma ahan inaan leenahay muqdisho aan lagu qabanin muqdisho maalin kasta in lagu soo dhaweeyo iyada naftarkeeda waan rabnaa dadaalka wadaan wasaaradda federaalka waxaan leeyahay hore u sii wada waxa inoo muuqdo ififaalo fiican sida hadda wax ku wadaan waxaan rajaynaynaa inay wasaaradaha warfaafinta ay noqon doonaan wasaaradaha eeda oo ku jiraan because eeda waaye laakiin waxa ka dhigayo inaan wasaaradii ay noqoto wasaarad markasta aanan sidii muuqato looga dareemin waxa waaye anaga dhaxdeena dhigi karaa marka wasiir adiga iyo teamkaada technicalka iyo wasiirada kale dhammaan waxaan rajaynaynaa in kaalintiina ay muuqato haddii kaalinteena muuqato markaas ay wasaaraddiina muuqan doontaa insha Allah intaas aan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh